waxaa maanta gelinkii dambe degmada Dinsor lagu soo dhaweeyay dhalinyaro ciyaaryahano ah oo ka yimid degmada Xudur ee gobolka Bokoor. Dhalinyaradan oo ciyaaro saaxiibtinimo dhexmara doonto saaxiibadooda ku sugan degmada Dinsor. Garoonka diyaaradaha degmada Dinsor ayaa waxaa ku soo dhaweeyay maamulka degmada Dinsor iyo mas'uuliyiinta sportska degmada. Cabdisiide Xaaji Cabdiqaadir oo kamid ah dhalinyaradii soo dhaweysay iyo qaar kamid ah dhalinyarada Xudur ayaa goobta ka hadlay. degmada Dinsor isna dhalatay ka dhawaada reer Xudur reer Dinsor dad walaale ee maamulka koonfur galbeedkaas kala jeedaan dhammaan reer koonfur galbeedkaas leena ayaa saaxiibtinimo oo sharaf badan dhexmar doonta may oo nabad aha isdhexgalka bulshada markaas dhawaaye marka magaalada kuleysan sheegay Cabdisiide Xaaji Cabdiqaadir waay marka dhalinyaradii isbarashadaan iyo isdhexgalkana ka shaqeeytina ilaahay iyo naxan gargeera horumarkan ka sii bilaaran sameeyay doon insha Allah ilaahay garamay inta kuma nagay dalaal dheeraad ah galis isboortiga lama isboorti iskiri mufadan qaasatan bay ma nagay maamulka degmada Dinsor gudoomiyaha maamulka Kanul Rooga iyo gudoomiyaha degmada injineer Shugo wala qeydin isgoradano anigu sameel badan asla marnay marka ma sha Allah qeydida amaane inay deegaanka aan dhawaayo marka si sharaf leh maamus leh yana aan dhawaayo qeydida kuma nagaan marka insha Allah wala kiileeyo marka walni leeyahay bilaa reer Xudur inuu ku baado gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Dinsor Abshir Macalin Shariif ayaa ugu dambeyntii dhalinyaradan ku bogaadiyay inay kaalin weyn ay ka qaadin doonaan horumarka dalka. halka maanta waxaan ku soo dhaweynaynay ciyaartoy lagu timid degmada Xudur runtii aad ugu faraxsanahay in ay maanta noo yimaadaan kulli maalmahan waa suuqeynay marka waxaan idin leenahay soo dhawaada wadankiina imaateen degmada Dinsor koonfur galbeed waay kulli idinka koonfur galbeed ka imaateen meel idinka jecel imaateen hadii martib ma tihiin Dinsor wala idinka soo horeeyay waa magaaladiina. Xuseen Ali Geese RTN degmada Dinsor.